nidaamkan lagu doortay maamulka degmada Warshiiq ayaa waxa ugu duwan yahay nidaamkii hore ee magacaabis ku imaan jiray maamulka ayadoona maamulka dawlad goboleedka Hirshabeelle ay ku guuleysteen xulista ergooyinka iyo sameynta xildhibaanada golaha deegaanka degmada Warshiiq oo si dimuqraadi ah u soo doortay maamulka cusub ee degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyihii hore degmada Warshiiq Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay arintan sameynta golaha deegaanka degmada doorashadan wanaagsan ee maanta degmada Warshiiq ay soo gaartay oo golaha konsolka ay dhisatay runtii 2015 ayaan ku soo almeenteenay waxaan doorasho u sameynay waaxyaha degmadan Warshiiq waxaa doortay gudoomiye walba oo waaxid 22 qofood oo waaxdaas ka mid ayaan soo dhisnay 22 ayaa u codeysay iyadoo doono maqli muuqaal ayaa jirto marka runtii markii hadda la gudgalayay annaga inaan dhawaato lagala kulmayno si soo dhismayso waa aaminsan waa qabnay walow dadka muxuu ahay qaarkiis sidee waxaanu hirgeli karaan culays ay qabeen gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiiq gobolka Shabeellaha Dhexe Xasan Maxamed Axmed ayaa ka hadlay qorshihiisa ku aadan waxyaabaha uu qabanayo amniga cadaaladda iyo bulshooyinka ayaa noo ah nambarka koowaad oo aarno golaha deegaanku inuu ka shaqeeyo boqolka maalin ee soo socota nambar 2 waxaa noo ah tayeenta iyo faruuqaadista aqoonta golaha deegaanka iyo diyaarashada qaab dhismeedka kumeelgaadka maamulka degmada diyaarinta qorshaha qaab dhismeedka magaalada dib u dhiska wadada isku xirka Muqdisho iyo degmada Warshiiq xildhibaan Maxamed Xuseen Mooge oo ka mid ah xildhibaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku dhiirigeliyay dadka degan degmada Warshiiq inay ka shaqeeyaan horumarka degmada golahan deegaanka dhismihiisa ay soo mareen ayada laftigeeda waqti koobnaa oo socday marxalada kala duwan marxalada markii hore waxaan ku yiraahdaa xubnihii iyo ergadii si ku imaan la fiiriyay hadana xubnihii soo doorteen 22 bishan halkan gudoomiye ugu doortay xildhibaan Yuusuf Ibrahim Yuusuf Kabaale oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay horumarka gobolka Shabeellaha Dhexe Hirshabeelle degmooyinkeeda degmada ugu horumartay waaye deegaan doorasho inay ka dhacdo waxaana keenay tawfiiqdu waxay u badan tahay sideeda diinka meesha ugu badan yahay marka way ku amaanan yihiin marka hore diinka ay ku amaanayeen haddana maanta waxaan leenahay tawfiiqda ayay haddana ay ku amaanan yihiin hadday inta tashadeen shicibkooda aqoon-yahankooda culumo-diinkooda dhallinyaradooda haweenkooda dhammaan ay golo deegaan inta samaysteen haddana doorasho deegaan samaysteen iyagoo aan waqti badan aynan ku qaadan sida meesha laga sheegay ay haddana isdoorteen wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa sheegay in maamulka dawlad goboleedka Hirshabeelle uu gaarsiin doono hirgelinta golaha deegaanka dhammaan degmooyinka gobolka oo dhan maalintii aan ku dhawaaqay la dooranayo golaha deegaanka 20 February ayaa la sameeyay 22 Agost waxay ahayd maalintii golaha deegaanka la dooranayay 2 sano iyo 6 bilood iyo 2 maalmood ay jirtay intaas anagu meesha aan joognay wax allaale wixii ku soo aaday Hirshabeelle oo dhaqaale ah ee la saxiixo waa dhacayeen ayagoon meel la gelsho lahayn maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wada dadaalo uu ku dardargelinayo sidii loo gaarsiin lahaa dhammaan degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe dhismaha golaha deegaanka si ay u soo doortaan cid ay iyagu doonayaan Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.